odayaal iyo dhalinyaro kulan ku yeeshay degmada Buloburte ee gobolka Hiiraan ayaa si kulul uga hadlay arrimaha haatan ka taagan degmada Buloburte ee la xiriira muranka ka dhashay gudoomiyaha Buloburte loo magacaabay iyo dhanka kale oo doonista dhismaha golaha deegaanka. Odayaasha dhaqanka degmada Buloburte oo kulanka ku sugnaa ayaa ka warbixiyay kulamo maalmahan ay la lahaayeen wasiirka arrimaha gudaha Hirshabelle Maxamed Cali Caalde oo ku sugan Buloburte, waxa ayna kulamadaasi ku tilmaameen kuwa ku soo idlaaday is-afgarad waa kuwan qaar ka mid ah hadaladoodii. kulankeenu wuxuu ku wajahnaa laba arrimood, labadaas oo kala ah waxaan anagu sagaalka maalmood ee wasiirka arrimaha gudaha ee dowladaha hoose Hirshabelle oo nala joogo degmada Buloburte wada xaajoodka golay dhaqanka oo ku howlanay ayaan ahayn shacabka reer Buloburte. wasiirkii muddo naga maqnaa wuxuu noo keenay inaan uga warbixino qodobka labaad waa kulankii u socday reer Buloburte oo ay ka talinta oo muddo bil iyo dhowr soo socday haddana sii socod doono ilaa heer anagu is doorano aan gaarsiin. wuxuu ka turjumaa kulankan isaga in la muujiyo, la tilmaamo, weliba si cad loo sheego daraanka ummadan ay xambaarsan tahay. ummadan daraanka ay xambaarsan tahay waa in ay hesho rabitaankeeda, ma aha rabitaan shakhsi ah, ma aha rabitaan dana gaar ah, ma aha rabitaan beel gooni ah, waa rabitaankii reer Buloburte. wasiirka arrimaha gudaha noo yimid state-ka Hirshabelle, wasiirka arrimaha gudaha haddii degmo la dhisaayo haddii gobol la dhisaayo bay shaqadiisa tahay. waa noo yimid ballanqaadkiina ninkii koowaad oo nala hadlayo wahay asagee wasiir madaxweyne ku-xigeenku. waxaan filaynay Buloburte saluugay qabto inuu baabi'iyo, ballantii ay naga qaadeen inuu fuliyo. khamiiska 8 jimcada maanta 9 casho 9 maalmood oo jooga. wax haba yaraatee aan isniraa meeshaan oo ka soo dhawaado xarig ka dabciyay ma arkin. wasiir Caadle aniga in badan wada fadhiisan maalikoo yimid iyo odayaasha saad ogeedeen oo reer Buloburte in badan wada fadhiisteen. waxaan isla dhaafi waynay war wasiirow aniga waxaad naga ballan qaadeen dhigtayna ku dhacdo qalbigayna oo galay in council aan dhisan, councilkaas oo ah in aniga istikhyaarkayna kaan doon aan ku keensano, hadduu nagu xumaadana iska bedelno, hadduu noo fiicnaadana aan kula dhaqanno. anagu waxba la qari maayo wasiirkii arrimaha gudaha Hirshabelle qamiistii doorashada qamiisteedii kale noo yimid 3 jeer aan wada kulannay. mowqifkii Buloburte ay rabtay oo ku baaqaynay waa isku afgara waynay. waxaan rabaa marka reer Buloburte inay tashtaan, nidaamkooda ay ku fikiraan. dhibaato jirto iyo danahooda qaaska iyo inaan bini'aadanku degan Buloburte kala maarmin iyo halka in hoos loo aado iyo farta in lagu fiiqo wixii wax dhibayo, wixii xala oo ummaddu aysan ka maarminne farta lagu fiiqo. waree Buloburte intaana cadadtii inta idaga maqan waa ka badata oo jibareedu badata ee danaha inay qabtana raali ma tihin. nakasta oo Hirshabelle kima danihiisa wata ee danahooda inay diina diyaar ma una. Hirshabelle diyaar diimanne dawladda waa suuqeena waa dawladda dha anaga balweyne waa ka fiicana been ku sheegi maayo qalabsi waa ka fiicana. Buloburte weligeed lama xalin, inta kale waa la xaliyaa. hadduu bixi waayo oo ushiis u jaran tahay taa u shaayna la raaca haddii kale ma bilaahi tawfiiq. in reer Buloburte laba geed la kala geliyay madan yeelayna ma aha oo muddo reer Buloburte waxaan kula ballamaa Buloburte lama kala leh, waa wada leenahay, waa wada dhalannay, waa wada tashan jirnay. waad arkoo haysiin dadka noo imaana inay noo maqneen. Caadle hadda wuxuu jiifaa hotel ka mid ah hoteelada Buloburte. wuxuu kari lahayaa inuu dhaho war wixii dhaawaa dhaceene dantiina ka tashada aniguna aan idin dhex fariistooda idin noqdo ama wasiir idin noqdo. maanta laga bilaabo Hiiraan waxaa ka istaagay urur la yiraahdo ururka dhalinyarada samata bixinta gobolka Hiiraan. waxa uu ka bilaawday ururkaas degmada Buloburte waa isku xiran yahay, gudoomiye uu leeyahay, ku-xigeen uu leeyahay, guddi fulin uu leeyahay, afhayeen uu leeyahay, maaliyad uu leeyahay, isku xire guud uu leeyahay.
wasiirku wuxuu islaa 18 oday meesha joogta ama 30 oday waa qancin kartaa laakiin Soomaalidu waxay ku mamaadaa jinsi waa maguuraan kala usul ka galo dhalinyaro oday saa u nahnay anagu fikradda kaliya waxa nagu jirtay inaynu nahnay far kaliya Absalaan Maxamed Ibrahim Absalaan Habi RTN TV Bulaburt